البين نوع أساس الدولة الرعي اللي بقول له القدر قصة قدر مسكين الميسي حنايا وإسكالنا سمرة ما أقول المدر ماركة سامك إسكالنا ولا دكتور ما تجا لما حيكون تجا لا ما أسمع إسكالنا وان حلنا أو وان حلنا لو إحنا المدام ما شلنا وإحنا إنتوا حلنا عندنا تندم ما جبت مركورة هذا عندنا سنا الله كساجبته دحدا markay soo rogmato dareen ma maraan ciyaalku ma dhaafaan ciyaalka ma doonano suuq ma tagan halkaas ku xanaana laanta dixda dhamaanayso haduu qof bukadana cid haduu bukadana waa sida yaa sanada faqad bacad ka fidna radna dilay wax kasta saddexda gudoomiye isbahaysiga mucaaridka Jabuuti ee BSN ayaa booqday qoysas badan oo laga barakiciyay guryahoodii xaafada Dooraale saddexda hogaamiye ayaa si foolka foolaha ula kulmay qoysaskani waxayna uga xog warameen qoysaskani xaaladda adag ay ku sugan yihiin qoysaskani waxay u sheegeen in xaaladda ay ku sugan yihiin ay tahay mid aad u muruga badan waxaana cabashooyinkoodii ka mid ahaa in carruurtooda laga saaray iskuuladii sababo la xiriira inayna haysan wax gaadiid ah oo ka qaada Beka Vantua una geeya dugsiga sare ee Doogley kaasi oo ku yaala goobtii laga soo barakiciyay intaa waxaa dheer qoysaskani waxay ku nool yihiin xaalad aad u liidata oo ah inayna haysan biyo koronto iyo xataa musqulo qoysaskan oo tiradoodu ka kooban tahay 212 qof ayaa bishii saddexaad ee sanadkii 2024 taliska Jabuuti si sharci darro uga barakiciyay dhulkii ay deganaayeen jidka loo maray barakicintaasi ayaa ah mid aan waafaqsanayn xeerka sharci ee dalka u yaala waxaana loogu andacooday in danta guud loo adeegsanayo dhulka ay deganaayeen iyada oo aan la siin wax magdhow ah oo sharci ah xeerku wuxuu dhigayaa dadka laga raro dhulkooda in loo raro meelo kale oo ku habboon oo leh adeegsiyada asaasiga ah sida biyaha korontada goobo caafimaad iyo fursad waxbarasho ataa beddelkeedii dadkani waxaa si arxan darro ah loogu daadiyay meel cidla ah oo ku taala Beka Vantua meeshaasi lagu daadiyay waa mid aan lahayn adeegyada asaasiga ah waxaana dadkaasi haysata xaalad adag waxayna la daalaadhacayaan kulaylka daran ee maalintii iyo qabowga habeenkii carruurtoodu waa kuwa ka baxay iskuuladii halka dadka waaweyn ay la tacaalayaan xaalado caafimaad darro ah iyo nolol adag oo aad u rafaad badan dhibaatadani waxay saameyn ku yeelatay noloshoodii oo dhan caafimaadkooda sharaftooda iyo xataa mustaqbalkooda arrintan ayaa ah dulmi cad oo aan la aqbali karin